أحمد براله إيمان ماير كدقمة السلحلي oo kormeer ku tagay riiga degmada Salaxley waxa uu sheegay inay jirto xaalad biyo la'aaneed oo ku soo fool leh bulshada ku nool degmada Salaxley iyo deegaanada hoos yimaada taas oo u baahan in loo diyaar garoobo waxaan ku sugannahay ceelkii biyaha ku dhawaad degmada Salaxley waa degmo runtii ballaaran oo xoolo dhaqatay runtii beeraley ah waa meesha xoolaha ugu badan runtii ay ka soo galaan Soomaaliland dadka xoolo dhaqatada ee reer guraaga runtii deegaan waxa jirta xaalad biyo la'aaneed oo ku soo fool leh bulshada degmada Salaxley xaaladaas runtii u baahan ka diyaar garow iyadoo imika aan joogno jilaal madaxii waxa hadana ka jirta degmada inay baraaguhu dhamaan baraaguhu badankoodii ay gabaabsi yihiin meelaha qaarna runtii ay baraagtii biyo ka dhamaadeenba oo biyo la'aan runtii laga soo sheegayo gaar deegaanada xuduudka waxaana sababay roobabkii xilliga dayrta oo runtii deegaanada si fiican uga diin maayarka degmada Salaxley ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay fadhiyaan laba ceel oo ku yaala banka qool caday oo ka tirsan deegaanada hoos yimaada degmada Salaxley ceelkan imika aynu joogno oo ka kaliya ta shaqeynaya mooyee waxa jira laba ceel oo kale oo ku yaala banka midna waxa weeyaan galbeedka banka midna waxa weeyaan muxuu ahaay bariga banka wadada cad ku yaala banka qool caday labada ceel waxay runtii u fadhiyaan cilado fudud labada ceel waxay runtii wax weyn ay ka tari lahaayeen baahida runtii biyo la'aanta ee jirta geesta kale xubno kamid ah odayaasha deegaanka iyo waliba sidoo kale golaha deegaanka ee degmada Salaxley ayaa halkaasi ka hadlay waxa weeyaan debnimayo waxa weeyaan dayr waxa la iska difaaca dayrta jiilaalka ayaa la iska difaaca tabayaaqadii dayreed baan imka maraynaa ayaa la oran jiray dayr gudban ayaa tabayaaqadii ka maraynaa sidaa darteed markii dayrtii la waayay waxa soo food saartay degmada Salaxley iyo hareeraheeda ama Soomaaliland ay soo degmada Salaxley hareeraheeda waxa soo food saartay biyo la'aan baraagihii oo aan biyihii dayreed helin waa biyo la'aantan aad baa looga cabanaya dal iyo dibadba waxaan doonaynaa in wixii laga qaban karay laga qabto dadkeenii reer miyiga maanta way baahan yihiin waxay u baahan yihiin waa biyo Mawlid Maxamed Saciid warbaahinta qaranka degmada Salaxley.